waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawad doontaan waxaa kamid ah Soomaaliya oo guul weyn u soo hoyatay kadib markii dowladda federaalka iyo IMF ay gaareen heshiis muhiim u ah deen cafinta madaxweynaha Jubbaland waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Gado iyo isbedelada ka dhacay dalka iyo qaybta dambe warkeena oo aad ku daawad doontaan jaajuusiin hordhac u ahaa booqashada Joe Biden uu ku tagay mid kamid ah dalalka caalamka ayaa la tarxiilay haddaba maxay sameeyeen jaajuusiintaas qodobada aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona oo arka janalka dalka TV Media fadlan daawade haddaan nagu cusubtahay nagu soo biro kamid noqo saaxiibada hela wararkii warbixinada aanu ku baahina janalkan aragtidiina nalkoos nagu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiina waa inuu dhiirigelin haatan ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan Soomaaliya ayaa guul weyn u soo hoyatay kadib markii dowladda federaalka iyo IMF ay gaareen heshiis muhiim u ah deen cafinta hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa ogolaatay inay dheereyso muddada ay kaalmada siiso Soomaaliya kadib markii la soo gabagabeeyay doorashada dalka waxaa sidaasi sheegay sargaal sare barnaamijka IMF ku caawinaysa Soomaaliya oo ah 400 milyan muddo 3 sano ayaa lagu waday inuu dhaco 17 May haddii aan maamul cusub la dooran ka hor xilligaasi ayadoo marar badan ay dib u dhacday doorashada Soomaaliya hase yeeshee guddiga fulinta IMF ayaa toddobaadkii tagay aqbaleen codsi ka yimid dowladda Soomaaliya oo ahaa in waqtiga loogu daro 3 bilood oo ku eg 17 Agoosto si waqtigan loogu siiyo dowladda madaxweynaha cusub ee Xasan Sheikh inay darasto oo ay taageerto isbedelka la qorsheeyay muddo kordhintan waxa ay waqtiga loo baahan yahay si doontaa in la xaqiijiyo fahamka siyaasadda dowladda cusub iyo xaqiijinta damaanada maalgelinta ee saaxiibada horumarinta waxa sidaas yiri madaxa howlgalka IMF ee Soomaaliya oo email u diray wakaalada wararka AFP saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaana soo dhaweeyeen doorashada madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayagoona rajeynaya inay soo afjari doonto xasilooni dara siyaasadeed oo muddo dowladda ka weeciyay haalisaha kale sida rabshadaha argagixisada iyo abaarta sida ku cad xeerarka barnaamijka IMF deenta Soomaaliya ayaa hoos uga dhici karta 557 milyan marka ay ku dhowdahay sanadka 2013 sida ay mas'uul ka tirsan hay'adaasi ku bixiso wareysi ee bishii Febraayo CCIV tani waxa ay Muqdisho u ogolaan doontaa inay soo jiidato maalgelin dheeri ah oo ay ka hesho saaxiibada caalamka kana caawiso horumarinta qeybaha gaarka ah Soomaaliya ayaa la sheegay in 70% dadkeeda ay ku nool yihiin wax ka yar $1.9 maalinkii waxayna la xarbinaysaa inay ka soo kabato 10 sano oo ah dagaal sokeeye iyo dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay bil kasta kabtaa 10 milyan oo miisaaniyadeeda madaxweyne Xasan Sheikh oo hore xilkan u soo qabtay 2012 ilaa 17 isla markaasna ah hogaamiyihii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee dib loo doorto ayaa ballan qaaday inuu dalkan ka dhigi doono mid heshiis ah dunidana heshiis la geesta kalena daawadayaal waxaanu eegaynaa madaxweynaha Jubbaland ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Gado iyo isbedelada ka dhacay dalka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa soo dhaweeyay isbedelka cusub ee dalka ka hirgalay isagoo xusay in muddo la sugayay doorashooyinka guud ee dalka ka dhacay Axmed Madoobe ayaa u mahadceliyay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 5 sano ee la soo dhaafay dalkan soo hogaaminayay isla markaasna aqbalay natiijada doorashada sidoo kale madaxweynuhu wuxuu mahadceliyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo si nafurnimo ah ugu istaagay sidii dalkan ay uga dhici lahayd doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay isla markaasna natiijadeeda la wada aqbalo gudiyada doorashooyinka ayuuna sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ku amaanay shaqadii hufneed oo ay soo qabteen madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayuuna Axmed Madoobe sidoo kale alla uga bariyay inuu la garab galo shaqada culus ee hortaala isagoona dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay dowladda cusub garab istaagaan si shaqooyinka horyaala ay u fuliso iyadoo haysata kalsoonida shacabka Soomaaliyeed dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland wuxuu sheegay in sanadihii la soo dhaafay Jubbaland ay dhibaato culus ka soo gaartay khilaafaadka ay abuurtay dowladda federaalka gaar ahaan arrimaha gobolka Gado wuxuuna madaxweynaha Jubbaland sheegay in la xalin doono wax walba oo caqabada oo jiray isla markaasna caqabadaha gobolkaas ka jiray ay ahaayeen kuwa dana gaar ah laga lahaa balse aan quseynin bulshada deegaanka waa sidoo hadalku dhigay Axmed ayaa tilmaamay in la fasaxay dhammaan taageeridii iyo adeegyadii horumarinta ee gobolkaasi ka xayirnaa sanadihii la soo dhaafay heer federaal iyo heer Jubbaland isagoo intaas ku daray in dhismaha golayaasha deegaanka laga bilaabi doono degmada Garbaharey
oo ah xarunta gobolka Gado isla markaasna aysan jirin maamul cusub oo gobolkaasi loo magacaabayo dadka deegaankuna ay soo dooran doonaan dadka iyaga matala waa sidoo hadalku dhigay ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu sheegay in kala aragti duwanaantii iyo khilaafkii dowladda federaalka ee gobolkaasi ka abuurtay aan cidna loo beegsan doonin dadka deegaanka iyo guud ahaan shacabka Jubbaland ay u mideysan yihiin xuquuqaha ay xaq u leeyihiin wax walbana wada hadal lagu dhameyn doono. si kastaba warkan ka soo yeeray Axmed Madoobe ayaa imaanaya xilli uu dib ugu laabtay magaalada Kismaayo kadib howlihii la xiriira doorashooyinka uu joogay magaalada Muqdisho muddo dhowr maalmood ah. Axmed Madoobe ayaana kamid ahaa madaxda lagu casuumay ka qaybgalka doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. وهاجا داوديال imikana waxaanu eegaynaa jaajuusiin hordhac u ahaa booqasho Joe Biden uu ku tagay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa la tarxiilay. Haddaba sababtu maxay tahay? laba nin oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa la saaray diyaarad dib ugu celinayso dalkooda kadib markii ay ku lug yeesheen muran buuq dhaliyay oo ka dhacay Kuuriyada Koonfureed. Raggan oo qayb ka ahaa wafdi hordhac u ahaa madaxweyne Biden ugana sii hormareen Kuuriyada Koonfureed ayaa cabitaan u doonteen baarar kala duwan oo khamriga lagu cabo sida ay tabiyeen warbaahinta Mareykanka. Mid ka mid ah labadan xubnood oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa la sheegay in muran gacan ka hadal watay la galay darawal taxi ah oo maxalli ah. Ma jirin cid la qabtay ama loo xiray arrintaasi balse booliska magaalada Seoul ayaa baaritaan ku sameeyeen dhacdada. Hay'adda sirdoonku way ka warqabtaa inay dhacdo aan shaqo ku saabsaneen ay ku lug yeesheen laba ka mid ah shaqaalaheeda taasoo noqon karta ku xadgudub nidaam ayuu yiri afayeen u hadlay laanta sirdoonka Mareykanka oo bayaan soo saaray. Waxa uu sargaalkani sheegay in labada nin ee shaqaalaha ahba loo diray fasax oo maamulku ka warqabo maqnaashahooduna uusan saameyn ku yeelan doonin safarka Mr Biden. Socdaalku uu madaxweynaha Mareykanka ku tagayo Seoul ayaa noqonaya lugta koowaad ee booqasho 4 maalmood ah oo ku marayo dalal ka tirsan qaaradda Aasiya. xilli uu gobolkaasi ku sii kordhayo walaaca laga qabo awoodaha military ee Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi. Ila wareedyo ayaa u xaqiijiyeen warbaahinta in labadan xubnood ee sirdoonka ka tirsan oo kala ah wakiil qaas ah iyo qabiir amni loo diray dalkooda hooyo galabnimadii Jimcaha. waqtiga la tarxiilay ayaa ahaa qiyaastii 1 saac ka hor inta uusan madaxweyne Biden booqashadiisa rasmiga ah ku tagin caasimadda Kuuriyada Koonfureed. Sida ay tabiso warbaahinta SBS maamulka ayaa baaritaan ku sameyn doono in raggan ay sarqaan ahaayeen xilliga ay arrintu dhaceysay halkii la baari lahaa dhacdada lafteeda. macada sida uu ku bilowday gacanka hadalkan dhaxmaray sirdoonka iyo ninka darawalka ah. Labada xubnood ayaana marka uu dagaalku dhacay ku sii noqonayeen hoteelkii ay deganayeen. Booliska maxalliga ciidanka amniga hoteelka iyo laba qof oo kale ayaa la sheegay inay ku soo baxeen dhacdada. Booliska Seoul ayaana baaritaan ku sameeyay mid ka mid ah shaqaalaha sirdoonka iyagoo wareystay dhinacyada kale balse waxay go'aansadeen inaysan xarig sameyn ama dacwad furin taa beddelkeedna raggii ayaa dib loogu celiyay dalka Mareykanka. guud ahaan daawadayaal wanaagaynta warkii waad kala socoteen janalka dalka TV Media fadlan daawade haddana ku cusub tahay nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada helo wararka aan ku baahino janalkan aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalkana sii share gareeyo si uu gaaro asxaab badan laagtinana waa inuu muhiim waana ku maasantiin daawashadii la socodka warka janalka dalka TV Media.